boqortooyada Sacuudiga ayaa xabsiga dhigtay laba sarkaal oo sare oo ka tirsan qoyska reer boqor. Ragga la xiray ayaa ah Amiir Axmed bin Cabdulcasiis oo la dhashay Boqor Salmaan iyo Maxamed bin Naayif oo uu boqorku adeer u yahay. Warbaahinta ayaa xarigan soo warisay Jimcadii shalay, waxayna sheegeen in xarigan uu la xiriiro tuhun isku day afgembi ah. Waxaa sidoo kale labada amiir lagu eedeeyey inay galeen khiyaano qaran. Amiir Nawaaf bin Naayif oo ay walaalo yihiin Maxamed bin Naayif ayaa sidoo kale xabsiga loo taxaabay sida ay ku waramayso jariidada The New York Times. Ma jiro wax war ah oo ka soo baxay mas'uuliyiinta Sacuudiga oo arrintan lagu faahfaahinayo. Arrintan ayaa noqonaysa cadaadiskii ugu dambeeyey ee dhaxal sugaha dalkaasi Maxamed bin Salmaan uu ku dhaqaaqo. Dhaxal sugaha oo loo yaqaano MBS ayaa ku guda jiray xoojinta awoodiisa tan iyo markii uu xilka dhaxal suginimo kala wareegay in adeerkiis Maxamed bin Naayif sanadkii 2017. Dhammaadkii sanadkaasi ayuu MBS wuxuu xabsiga u taxaabay tobaneeyo qof oo isugu jiray rag qoyska boqortooyada ka tirsan iyo ganacsato waaweyn oo dalkaasi laga yaqaano, taasi oo lagu macneeyey tallaabo lagula dagaalamayo musuqmaasuqa. Laakiin tallaabooyinka uu dhaxal suguhu ku adkaynayo awooddiisa ayaa ka caraysiiyey xubno muhiim ah oo ka tirsan qoyska reer boqor, oo qaarkood ay su'aal gelinayaan awooddiisa hogaamineed kadib dilkii arxandarrada ahaa ee sanadkii 2018 ciidamo ka tirsan Sacuudigu ay u geysteen wariye Jamaal Khashoggi oo lagu dhex dilay qunsuliyadda Sacuudi Arabiya ee magaalada Istanbul ee dalka Turkiga, iyo sidoo kale weerar culus oo lagu qaaday kaabayaasha saliidda ee Sacuudiga sanadkii hore sida ay ku waramayaan ilawareedyo u waramay wakaaladda wararka Reuters. Ilawareedyadan ayaa sheegaya in xubnaha qoyska boqortooyada dalkaasi ay raadinayaan hab ay ku bedelaan dhaxal sugaha oo ay u arkeen in Amiir Axmed oo ah walaalka keli ah ee nool ee Boqor Salmaan uu yahay qofka haysta taageerada qoyska reer boqor, saraakiisha ammaanka iyo sidoo kale wadamada reer galbeedka. Hase ahaatee, mas-uuliyiin Sacuudi ah iyo diblomaasiyiin reer galbeed ah ayaa sheegaya in qoyska reer boqor aysan macquul ahayn inay ka soo horjeestaan dhaxal sugaha haatan inta uu aabbihiis Boqor Salmaan nool yahay. Boqorka oo ah 84 jir ayaan laga yaabin inuu ka soo horjeesto wiilkiisa Maxamed. Boqorka ayaa inta badan mas-uuliyaddiisa hogaamineed waxa uu ku wareejiyey wiilkiisa. Hase ahaatee, wuxuu weli shir guddoomiyaa shirka golaha wasiirada ee toddobaadlaha ah, isagoo sidoo kalena qaabila wufuudda dalalka shisheeye ee Sacuudiga booqda. Xariga saddexdan amiir ayaa imanaya waqti xiisad adag ee Sacuudiga kala dhaxayso dalka ay siyaasadda gobolka ku loolamaan ee Iiraan. Dhaxal sugaha Maxamed bin Salmaan ayaa dhaqan geliyey tallaabooyin dib u habeyn bulsho iyo mid dhaqaale. Sacuudiga ayaa haatan ah guddoonka sanadlaha ah ee kooxda G20 loo yaqaano ee wadamada ugu dhaqaalo weyn dunida. MBS ayaa sidoo kale lagu ammaanay inuu yareeyey cadaadiskii bulshada Sacuudiga iyo weliba inuu la yimid tallaabooyin dhaqaalaha dalkaasi lagu kobcinayo, laakiin wuxuu cadaadis caalamiya kala kulmayaa dagaalka khasaaraha badani uu ka dhashay ee dalka Yemen ee Sacuudigu ku lug leeyahay dilkii wariye Jamaal Khashoggi iyo sidoo kale xariga xubno u dhaqdhaqaaqa xuquuqda haweenka oo ku xiran dalkaasi.